lamaana ka wada tirsan ciidamada waddanka Ukraine ayaa dunta isku xidhay iyagoo difaac kaga jira safka hore dagaalka ee magaalada caasimadda ee Kiev waxaana arooskoodii ay ku labisteen direyska ciidamada iyadoo ay la joogaan askarta kale dagaalka ay ku wada jiraan. Lysia iyo Filari ayaa la arkayay iyagoo ku dabaaldegaya barbaaritaanada lagu sameeyo u dhow Kiev waxaana Lysia ay haysatay ubax kadibna waxay isdhaafsadeen koobab ay ku jiraan cabitaanada kulul. markii aroosku dhacay lamaanahani waxa garab joogay ragga iyo haweenka kale dagaalka ay ku wada jiraan waxaana sawir laga qaaday iyagoo heesaya. muuqaal la duubay ayaa muujinaya lamaanaha oo dhoolla cadaynaya. mar dambe ayaa gabadha caruusada ahayd waxa loo geliyay toobka arooska iyadoo qof uu ka bedelay labiskii ciidanka. mid ka mid ah askartuna waxa uu noqday wadaadkii isu meheriyay ee dunta isugu xidhay labadani askari. muuqaalka arooska oo soconayay 1 daqiiqo oo baraha bulshada uu ku baahiyay wariye Jarmar oo la yiraahdo Paul Ronchamer ayaa waxa daawaday in ka badan 1.7 milyan oo qof waxaana like saaray 55,000 halka kumanaan qof oo kale faalle ka bixiyay inay hambaliyeeyeen lamaanaha. duqa magaalada caasimadda ee Kiev Vitali Klitschko ayaa tagay goobta aroosku ka dhacayay isagoo sheegay inuu diyaar u yahay difaacidda magaalada caasimadda oo kaabiga ay u saaran yihiin ciidamada Ruushku.